assalaamu calaykum. adigoo mahadsan nala wadaag khuraafaadadii aad yaraantaadii aamusnayd. aniga haddaan ka bilow kuwa aamusnaa waxaa ka mid ah markii gacanta madaxa saarato in hooyada iyo aabbaha kaa dhimanayaan. midda labaad, guumays gurigiina hadduu soo koro in qoyskiina qof ka mid ah uu dhimanayo. labadaas ay golyaa badneed kuwa aaminsanaa yaraanteeda. bal adiga nala wadaag kuwa aamusnayd. waxay raan u laabano caruurnimadeenna sidaan u helno refreshment. maanta waxaan rabaa inaan sharaxo filim cabsi badan magaciisuna yahay Badias. ka hor intaan filimkeena bilaabin waxaan ku xasuusinayaa adigoo maasan inaad channelka subscribe saartid, gambalaalka la furtid, sidoo kalena muuqaalka like saartid. waxaa laga yaabaa in agtaada ka fududahay laakiin aniga dhiirigelinaya ay tahay. aad iyo aad ayay u maasan tahay haddii aad intaas ii samaysay. aan ku soo noqono filimkeena. bilowga filimka waxaan aragnaa laba walaalo ah oo lagu kala magacaabo Cory iyo Jeffrey oo kalkaaliyaal caafimaad ah. waxay ka shaqeeyaan cisbitaalka halkaasoo ay ku dhijiyeen raadiyahaas oo ka caawinaya inay ogaadaan haddii qof dhaawacmay ama wax kala soo gaareen. markan waxay maqleen gabar dhaawaca oo ay gacanta wax ka soo gaareen. waqti yar ayayna ambalaaskooda goobta ku soo gaartay. waxay geeyeen ininta ambalaaskooda si ay u kaxeeyaan. ambalaaska gudihiisa ayay dhammaantood ku wada sheekaysteen wax yar oo ku saabsan waxyaaba aan kala sooc lahayn. isla markiiba mid ka mid a walaalihii ayaa gabartii siiyey daawo uu ku suuxiyo waxaanay u qaadeen cisbitaalkooda. kadib waxaan aragnaa arrin naxdin leh. waxaan aragnaa in Cory iyo Jeffrey ay jeexeen gabadha calooshooda ay kala soo bixeen xubnaheeda si ay u iibiyaan. muuqaalka xiga waa qaybta ay ka muuqanayso in labadan walaalo aanay ahayn dhakhaatiir caafimaad halka ay yihiin kuwa ka ganacsada xubnaha bini'aadamka. waxa ay geeyaan dad aan waxba galabsan iyo kuwa dhaawaca oo ay siiyaan daawooyin kadibna ay xubnaha kala baxaan oo ay ku sii iibsadaan lacag aad u badan. waa wareey. intaa kadib Jeffrey ayaa qabsaday gabadhii ee hadda dilay taleefankeeda wuxuuna soo geliyey Facebooka qoraal iyadoo sheegaysa in magaalada ka maqnaan doonto muddo maalmo ah si aan qofna u soo raadin gabadha. aqli badna. Cory ayaa u yimid oo u sheegay walaalkii inuu tijaabiyo fikrad cusub maadaama ay marmarsiyo la mid ah maalmo ka qaadanayso. Cory iyo Jeffrey waxa ay ku lug leeyihiin dembigan ilaa 3 toddobaad oo kale waxayna kasbadeen lacag badan. walaalaha ayaa markaas dareemaya dareen iyagoo ka hadlaya noloshooda. Cory wuxuu xaqiijinayaa Jeffrey inuu jecel yahay isagoo uusan weligii ka tegi doonin. maalintii xigtay waxaa jira gabadh dhex lugeynaya keynta kadibna gabadh la yidhaahdo Sandy ayaa caqowga kaga dhacay dhagax weyn oo ay ku dhacday isagoo lugta ka dhaawacay. saaxiibadeed ayaa wacay ambalaasta. fiidkiina Cory iyo Jeffrey waxay u yimaadeen inay Sandy u qaadaan cisbitaalka. Cory ayaa u sheegay Sandy saaxiibadeed inaysan raaci karin iyaga maadaama ay u ogolaadaan bukaanka oo keliya si ay keligeed u noqoto. isla markiiba way aqbaleen. waxay ku sii jideen cisbitaalka. Jeffrey ayaa haddana sameeyey wax la mid a wixii hore. wuxuu suuxiyey Sandy wuxuuna bilaabay inuu salaaxdo sidii inuu garanayo oo kale. waxay geeyeen cisbitaalka waxayna ku dhow yihiin inay bilaabaan qaliinka. laakiin waxaan aragnaa Cory markii ugu horreysay oo uu dareemayo dareen kacsanaan ah oo uusan awoodin inuu qabsado shaqadiisa. Jeffrey wuxuu u sheegay Cory inay qaban doonaan shaqada waynu joojiyeen qaliinkii. waxaan aragnaa Jeffrey oo mar kale bilaabay inuu salaaxo Sandy oo wuxuu eegayaa wejigeeda aan waxba galabsan. muddo kadib Sandy way soo toostay waxayna ogaatay inay ku jirto qolka qaliinka. waxay eegtay kaamirada oo waxay ka codsatay walaalaha inay fasaxaan. Sandy waxay heshay dhar dhulka yaalla wayna xiratay. dhulka ayay fadhiisatay oohin ayayna bilowday waayo waxay dareemaysaa inay wax ka qaldan yihiin. xanuun aad u daranna wuu hayaa. maalintii xigtay Cory wuxuu cunto u keenay Sandy laakiin ma rabto inay cunto oo way iska tuurtay cuntadii. tani waxay ka cadhaysiisay Cory wuxuuna isku dayay inuu qasbo Sandy oo uu kabsado laakiin Sandy way isdifaacday oo waxay haraantisay Cory wejigiisa. Cory wuu xanaaqay oo wuxuu u hanjabay Sandy kadibna qolka ayuu isaga baxay. habeenkii markii Sandy seexatay Cory ayaa u yimaaday si uu kufsado Sandy taasoo Sandy u sababta xanuun aad u badan. maalintii xigta markii Jeffrey isku dayay inuu jirka oo dhan u nadiifiyo ayaa Sandy waxay dib u helaysaa dareenkeeda waxayna laaday Jeffrey sababtoo ah way baqday. Sandy way cabsanaysaa wayna xanaaqsan tahay. markii ay aragtay Jeffrey ayay weydiisay inuu sidaas oo kale ku samayn doono iyada sidii walaalkiis ku sameeyey oo kale. markii uu dhageystay warkeeda Jeffrey waxa uu sheegay inuu yimid inuu nadiifiyo iyada uuna siiyo cunto oo aanay wax kala jirin. Sandy waxay weydiisay Jeffrey inuu ka baxo qolka waxayna bilowday inuu cunto raashinkii sababtoo ah way gaajeysan tahay. Cory waxaas oo dhan wuxuu ka daawanayaa CCTV-ga wuuna qoslay isagoo wax walba ku raaxaysanaya. maalintii xigtay Cory wuxuu yimaaday qolka Sandy wuxuuna u sheegay inuu u yimid inuu daaweeyo lugteeda jaban. Sandy ma aysan dhegaysan isaga oo waxay rabtaa inay baxdo. Cory
ayaa markaas u sheegay in ay dili doonaan haddii ay dhegaysan weydo iyaga. tani waxay Sandy ku abuurtay cabsi badan, xitaa waxay ogolaatay in ka badan waxa ay ka rabeen. Jeffrey ayaa keenay lug caaga oo u sheegay inuu ka caawin doonto cagaheeda. si tartiib ayuu lugta ugu masaajinayaa, laakiin nasiib xumo si lama filaan ah ayuu waxa uu ka jiibay lugteedii isagoo lugta ku riixaya birta sariirta. way xanuunsatay oo waxay la ooyeysaa xanuunka awgii. Cory wuxuu u sheegay in daawadan ay bogsiin doonto lugteeda oo waxay ka yareynaysaa xanuunka, marka haddii aad rabto daawada waa inaadna dhegaysataa annaga, ayuu ku yidhi. Sandy way aqbashay, wuxuuna siiyey daawadii, kadibna way miir doorsoontay mar kale ayuuna kufsaday. muddo kadib Sandy ayaa dareenkeedii soo noqday. gabadha maskiinta ah ayaa weydiisay Cory ilaa intee ayay tahay inay halkan sii joogto. Cory waxa uu ku jawaabay inay halkan sii joogi doonto inta uu rabo, haddii uu doonana uu dili doono. Sandy waxay ka baryaysaa Cory inuu sameeyo wax kasta uu doono, laakiin marka xigta waa inuusan ka dhigin mid suxsan, iyaduna ma jecla inay lumiso dareenkeeda. Cory wuu aqbalay arrinta. dhanka kale Jeffrey wuxuu yimid qolkooda wuxuuna arkay sawir ay ka wada muuqdaan Jeffrey, Cory waxaana dhexda ugu jiray gabar u eg Sandy. Cory wuxuu arkay in Jeffrey uu oynayo. waxa uu sheegay Jeffrey in aanu mar dambe ka fikirin arrinkan oo uu naftiisa daneeyo. maalintii xigtay Cory wuxuu cunto u keenay Sandy. waxay weydiisay ilaa intay halkan ku sii hayn doonaan. Cory waxa uu ku jawaabay ilaa inta uu rabo, way sii hayn doonaan kadibna way dili doonaan. Sandy waxay u sheegtay Cory in marka uu waxaan oo dhan sameynayo uu noqday mid maskaxiyan aanu dan ka lahayn nolosha dadka kale. Cory waxa uu ku jawaabay in aanu hayn maskaxiyan uu yahay shaydaan, waxaan oo dhan waxa uu sameynaya si uu u badbaadiyo nolosha dadka kale. xubnahan ayaa dadka kale ku caawinaya si ay u noolaadaan. yaa badana qof uu dilaa xubnaha kala baxaya si uu qof kale badbaadiyo. Cory oo rabo inuu baxo ayaa Sandy waxay weydiisay inuu mar kale kufsan doono in kale. Cory waxa uu ku jawaabay maanta xiise iguma hayso, wuuna ka tegay. kadib Sandy iyadoo dharkeeda iska beddelayso ayaa Jeffrey la soo galay quraacdeeda oo wuxuu arkay iyadoo qaawan, kadibna wuu ka sii jeestay. Sandy ayaa u sheegtay inuusan sii jeesan, wayna u soo dhowaatay inay taabato oo sasabato ayuu isku dayday iyadoo farteeda ka leefaysa shukulaatada. Jeffrey wuu jecel yahay taas, laakiin markii Sandy ay taabatay Jeffrey qaybtiisa gaarka ah uu dareemay wuuna ka cararay meesha. Cory waxaasoo dhan wuxuu ka arkayay kaamirada CCTV-ga, wuxuuna ogaaday in Sandy ay ka soo agdhowaanayso Jeffrey si ay u isticmaasho ay uga baxdo halkaas, laakiin waxa uu rabaa inuu ogaado qofka walaalkiis uu doorto, Sandy ama Cory. habeenkii Cory ayaa mar kale kufshay Sandy waxayna bilowday inay dhiig baxdo. subaxda dambe markuu Jeffrey u yimaaday si uu uga caawiyo sidii uu ugu nadiifin lahaa dhiigga, laakiin Sandy way diiday oo waxay sheegtay inay keligeed samayn karto. Sandy ayaa mar kale isku dayday inay sasabato Jeffrey oo ay ka dhigto mid taabto jirkeeda uuna dhunkado. Jeffrey waxaas ma jecla oo qolka ayuu isaga baxay. Cory ayaa waxaasoo dhan ka arkayay kaamirada oo wuxuu u maleynayaa in Sandy ay sameynayso wax kasta si ay Jeffrey dhinaceeda u soo galo, tanina waxay ka dhigaysaa mid yaab leh. Sandy ayaa u soo dhowaatay kaamirada waxayna bilowday inay dhahdo waan ogahay in Cory uu wax walba arki karo, waxayna usii sheegtay inay iyaduna samayn karto wax kasta oo ay rabto. Jeffrey ayaa yimid qolkiisa oo wuxuu ogaaday inuu jacayl u qaado iyada. maalintii xigtana wuxuu Sandy u diyaarinayaa cunto aad u dhadhan fiican. markii uu Cory arkay arrinta wuxuu u sheegay Jeffrey inuu aadi doono Sandy oo weydiin doono su'aalo aan toos ahayn si uu u qalo oo uu hadhow u iibiyo xubnaheeda. Jeffrey waxba ma oran karo waayo waa walaalkii, la'aantiina waxba muusan ahaan lahayn. Cory wuxuu weydiiyey Sandy su'aalo ay gebi ahaanba iska indhatirtay. Cory wuxuu uga hanjabay in haddii ay si sax ugu jawaabi weydo uu ka jebin doono lugteeda kale. Sandy ayaa ka jawaabtay dhammaan su'aalihiisa waxayna bilowday inay aflagaadayso Cory. isagoo xanaaqsan ayuu si toos ah ugu tegay Sandy una sheegay inuu wax xun ku samayn doono. Sandy waxay isku dayday inay dhukanto Cory. ficilkan Cory wuxuu dareemay karaahiyo oo wuxuu ka baxay qolka isla markiiba. Jeffrey wuxuu yimid qolka Sandy kadib waxay ka codsatay inuu la seexdo. Sandy ayaa markaas u sheegtay Jeffrey inuu yahay nin wanaagsan oo daryeela misna quudiya iyada. waxa uu leeyahay dhammaan calaamadaha ay gabdhuhu nin ku doortaan. intaa kadib way isfahmeen. Cory waxa uu waxaas dhan ka daawadaa kaamirada wuuna hubaa in hadda Jeffrey uu jacayl u qaaday oo uu Sandy dhinaceeda yahay. Sandy waxay weydiisay Jeffrey sababta ay u sii nooshahay ilaa iyo hadda. Jeffrey ayaa tusay sawirka uu eegayay maalintii, wuxuuna u sheegay in gabadha sawirka ka muuqata ay tahay walaashood. waalidkooda waxay ka tageen iyagoo yaryar, saddexdooduba way wada joogeen tan iyo markaas. dhammaantood waxay ku wada seexan jireen hal sariir oo aad bay isugu dhowaayeen.
markii Cory uu ku jiray kollejka wuxuu bilaabay inuu hablo keeno gurigeeda taasoo walaashiis aad ugu maseertay ugu dambeyntiina aad ay u xanuunsatay oo way geeriyootay. Jeffrey ayaa weli Cory ku eedeynaya dhimashada walaashood waxa uuna intaa ku daray inuu hubay in Cory uu ka tegi doono isaga iyo walaashiis sanado kadib. Sandy waxay ogaatay inay u eg tahay walaashood waana sababta ay weli u nooshahay. Markii Jeffrey uu ka baxay qolka Cory wuxuu isku dayayaa inuu fahamsiiyo in Sandy ay isticmaalayso isaga oo aan wax jacayl ah u qabin. Tani waxay ka dhigaysaa Jeffrey inuu aad uga caroodo wuxuuna bilaabay inuu ku qayliyo walaalkii wuxuuna bilaabay inuu naftiisa garaaco. Cory wuxuu isku dayayaa inuu qalbi qaboojiyo oo haddana isku dayo inuu fahmo inuu asiga ka jecel yahay qof kasta. Habeenkii Sandy iyo Jeffrey waa wada seexdeen. Sandy waxay Jeffrey u sheegtay inuu ka wanaagsan yahay walaalkii sidoo kalena uu ka qurux badan yahay. Intaa kadib Sandy waxay u soo jeedisay Jeffrey inay ka fogaadaan walaalkiis Cory si uusan u soo raadin. Cory wuu daawanayaa waxaas oo dhan wuxuuna gartay in walaalkii uu qiyaami doono waqti kasta oo uu Sandy ka dooran doono isaga. Waa mid caqli badan kan. Cory maalintii dambe waxa uu ka haystay walaalkii oo waxay la soo noqdeen nin kale si ay xubnaha jirkiisa ula baxaan na sii iibiyaan. Cory ayaa gacmaha ka xirxiray Sandy oo kor u taagay wuxuuna u sheegay inay daawad doonto bandhig toos ah. Sandy waxay bilowday oohin waxayna ka codsataa inaysan sameyn wax sidaas oo kale ah laakiin qofna ma dhageysan warkeeda. Waxay bilaabay inay qaliinka ku sameeyaan horteeda ninkii oo weli nool. Sandy way naxday way rumaysan weyday waxay aragtay. Markii ugu horreysay waxay aragtay nin horteeda ku dhimanaya. Cory waa uu furay oo wuxuu sheegay inay daawan doonto waxaan oo kale maalin kasta. Maalinta xigta Cory waxa uu u diray Jeffrey suuqa si uu wax ugu keeno Sandy isla markaana waxa uu yimid Sandy si uu ugu hanjabo inuu baabi'in doono jirkeeda iyo wejigeeda taas oo ay u adeegsanaysay in Jeffrey ay kusoo xirigeliso. Waxa uu sheegay Sandy in walaashiisa aysan u dhiman xanuun dartiis ee uu sumeeyey asiga. Sandy way naxday kadibna waxay garwaaqsatay in koofiyadda uu ku qiyaameynayay sababtoo qalka waxaa ka buuxa gaas wayna suuxday. Waxaa lumay dareenkeedii kadib Cory wuxuu ka taliyay bushmaheeda iyo xubinteeda gaarka si aysan u isticmaalin uuna u maareeyo walaalkii. Jeffrey ayaa yimid oo wuxuu arkay waxa uu sameeyey walaalkii wuxuuna bilaabay qaylo kadib waxay bilaabay inay murmaan isla markaas ayuu Jeffrey bilaabay inuu garaaco Cory oo madax dhulka u garaaco. Sandy hadda way soo kacday oo waxay aragtay in walaalaha ay dagaalamayaan. Waxay soo qaadatay haanta gaaska oo dhinaceeda taalay waxayna ku dhufatay Jeffrey. Sandy ma haysato wax fursad ah oo waxay isku dayaysaa inay baxsato oo ay la orado nolosheeda. Cory waxa uu qalbi qaboojinaya Jeffrey oo ku jiifay dhabta Cory. Jeffrey ayaa ku yiri Cory inantu ay qiyaamaysay bilowgiiba. Hal sano kadib hadda waxaan aragnaa Jeffrey iyo Cory oo weli shaqadooda wata. Si lama filaana waxa uu soo wacay gabar ku dhaawacantay kaynta. halkaas bay aadeen si ay u soo kaxaystaan gabadha laakiin gabadhii way qiyaamaysay oo sun ayay ku durtay ninkii. kadib Cory waxa uu garwaaqsaday in dadkani ay yihiin Sandy iyo saaxiibadeed. Sandy waxay keentay Cory iyo Jeffrey isla isbitaalkii waxayna Jeffrey ka xirtay gacmihii wayna soo laalaadisay. Coryna waxay seexisay sariirta qalliinka. Cory ayaa ku qanciyay Sandy inay iska fasaxdo Jeffrey maadaama qaladkan oo dhan uu asiga lahaa laakiin ma aysan dhageysan oo waxay ugu hanjabtay Cory inay walaalkiis Jeffrey hadda qali doonto ay xubnihiisa ka soo bixin doonto isaga hortiis. waxay u soo dhawaatay Jeffrey wuxuu sheegay inay jacayl u qabto isaga marka wuxuu weydiiyey maxay tahay sababta aad waxaan dhan igu sameynayso. Sandy ayaa runta u sheegtay oo ah in aanay weligeed jeclan asiga. kadib nin ayaa yimid isbitaalka si uu u aruuray xubnaha wuxuuna u sheegay haddii ay u qabatay shaqadii raggaas ay u qaban jireen oo kale inuu siin doono lacag badan. Sandy way ogolaatay taas oo waxay weydiisatay ninka inuu ku sugo banaanka 5 daqiiqo kadibna gudaha ayay aaday. sheekaduna waxay ku dhammaatay halkan iyadoo gunaanadeysa in hadda Sandy lafteeda ay sameyn doonto isla shaqada naxdinta leh ay hore u sameyn jireen Cory iyo Jeffrey. oo ku maasantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar wixii fikirkaaga commentiga la wadaag channelkana subscribe saar. aad iyo aad u maasantahay.